sidii bay xaafadii u buuxaan dunyadiina sidii bay makana soo wadantahay dhan ay u kaxaydaan tawadinka arkaya maanta isha macalina ama dawladda taama qoyana taama shicibaato wala walaarkii kani ma aha barkad mana aha ballay waa bankii wajaale oo biyo qariyeen waxaana biyahan xidhay laamayda u dhaxaysa kala baydh iyo wajaale laamaydan oo laga hirgeliyey halkan sanadkan gudihiisa haddaba laamaydan ayaan weli xadhigga laga jarin balse dadweynaha reer wajaale iyo weliba maamulka wajaale iyo deegaanada halkan deg ayaa shirkaddii dhisisay halkan ugu baaqay inay u sameeyaan bullaacado balse waxaa ka diiday shirkaddii islamarkaasina u sheegtay in ay tahay waddo casri ah haddaba waxay noqotay hadda ballay sida idiin muuqata waxayna ka muusaysaa waddadani xagga dambe bilaa buundooyin ayay biyuhu jiirayaan oo ay hoosta ka dusayaan haddii ay soo maraan gaadiidka waaweyn ee xamuulka ah ee wajaale mara ee etoobiya ka yimaada waxaa laga yaabaa in ay degto gebi ahaanba sidaasina ay ku kala xidhmaan wajaale iyo hargeysa dadka halkan mara ayaan wax ka weydiinay khasaaraha halkan ka soo gaadhay biyahan waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxa weeye biyahan waxay maraan muulalba loo samayn markii waddadan la samaynayo cid waliba horkayso garaad lidee ama dawladda taama qoyana taama shicibaato wala walaarkii laakiin wala daawaneedii annagu xali markaan gaadhiga horreeyay meesha maray baan ahaa intuuna shilku ka dhicin marka waxaan leeyahay cidday qusayso ee meesha maamulkeega muulasha loo badiyo waddadan ay samaysay qolada la yidhahdo MBHH oo subcontract ka sii qaadatay DB World waxa biyaha intaa leeg waxa loo sameeyay laba meelood ay ka baxaan waxaad indhihiina TV kulleeyda ku tusi doona biyihii imika waddadaas way dumaysaa xalayta waxa nala socda dhaawac xalay ku dhaawacmay waddadan oo bad laamido biyo dul marayaan oo may baranay iyagoo sidaa u socda ayay halka kula kulmay gaarigiina uu qallimay saaka laga qaaday shalayna isla saacad ka horna qof baa ku dhintay waa biyaha waddada dul marayo kaliya xaafadda reerka halka yaala kabarada ku qaban doontaan biyaha isweer ka qabtay maca xoolahoodii waddadii wajaale saasay tahay magaaladii wajaale dad baabuurtii transit ka maraysay xataa waxay ku xaniban yihiin iyagoo qoladii maamulka wajaale laftooda iyaguna waddadii xanibay oo u sameeyey in intay carratuul dhigeen bay baabuurtii meelay ka baxda la laayay wajaale labadii waddan way kala go'an yihiin dee waxaa laga qabta sidana si maahay sida degdega badan leh ay carradeeda iyo waxqabadkeegaba dalkeyga iyo dadkeygaba ugu soo gaadho waayo goodaha imika qaaradda aan joogna afarta dhanba imika biyuhu naga xigaan dad iyo duunyaba xalay toole wixii magaranaysaa biyahaas ay saa u galeen imikana sidii bay xaafadii u buuxaan waddadii waxa weeye biyo waa kuwaasoo way ka dul dhaceen imikana roogga hoosteedii bay marayaan buundooyinkii maaha iyadu dhexdeedii bay ka baxayaan imika halkan TV-good ku qaban kartaa waxaasna waxay ka timid waa dabagal la'aan iyo nidaam aan macnaha in waxay ahayd waxaan gebigeygaba intan buundooyinka in sidii shabaka loo geliyo oo si caadiya biyuhu uga baxaan tawadinka arkaya maanta isha macalina xadhigga haddaan laga jarin xukuumadda waxaan ugu baaqayaa halkaa wax alla waxqabadoo looga qabtay oo dadka loo qabtay inaanay jirinba heer waxaanu gaadhnaa nidhaa kuwa dadkaa reer miyiga hadhow toole meesha waad ka guuraysaana hor joogsada buuntaha laydinka geliyey kuwaa midaad arkaysa maanta ka qaxay guryaha odayaalkay guryaha ka qaxeen dhinacii shishe biyihii way fadhiyaan reerihii deganaa way qaadeen xaggan hoosena biyuhu way ka soo baxayaan laamida biyi baa soo hoos maraya had qofka ku istaaga ayaa dejinaya marka iska daa gaari weyn oo maro marka way go'aysaa waddadu intan biyaha fadhiyaan oo dhan waxaasoo dhan sababa muulalkii ay biyuhu ka bixi lahaayeen oo la yareeyey oo laba xidhayo laba meelood baa loo sameeyey banka intaa leega 20 kilomitir idan iyadoo weli aan xadhiggii laga jarin waxaa haddana dhacday in dee biriish in loo sameeyahay marka horeba maadaama ay soo dul mareen biyihii waddadii markaa waxa weeyaan dee waxqabad baa looga baahan yahay gaadiidku inuu la go'do baa meesha ku jirta sabab badan baa ka imanaya marka waxaanu leenahay iminka intay wakhtigu aanu hadhow toole waxyaalo badani ku lugu'in ha laga gaadho meesha wax alla xalay noo shaqeeyna ma jirtee wadiga arkayo biyihii meesha way ka soo way goynayaan meesha ta kale xaafadihii dhibaato ayaa haysata xoolihii way ka dhidhinteen iyagoogii baa dirqi kaga baxay baa layidhi xalay toole markaa waxaan u sheegaynaa dadweynaha inay halkan ka kacaan oo de yidhaahdaan wax naga qabta iminka biyahan soo galeen laga yaabo iminka gawaadhidoo kale ku waaweyn hadday ay soo galaan in ay dib u dhacaan ama ay meeshu degto marka waxaanu doonaynaa in horta ay magaaladu ay xagga dawladdu ay xaggan timaado waddadan oo laga maalgeliyey mashruuca berbera koordhoor waa wadda halbowle ah oo Soomaaliland iyo Itoobiya isku xidha oo lagu talagalay gaadiidka xamuulka iyo dadka isku socodka labada dalka gudbay inay maraan waddadan
markii la sameynayay annagu ka golo deegaan ahaan talooyin badan baan usoo jeedinay shirkaddii waddadan sameynaysay waxaan u sheegnay inay meeshan tahay meel biyo mareena oo biyo badan maraan nasiib darro laakiin wakhtigaasi la islama fahmin oo shirkaddii sirfeynka qaaday waxay iyadu u arkaysay dhul iska bannaan oo aan biyo marin bay u arkaysay wakhtigaasi annagu aad baan ugu adkaynay maamulka gobolka iyo degmooyinka inta waan isku nimidnay wasiirkii wakhtigaa joogay warqad baa la qoray shirkaddii way la fahmi weyday hawshaa jirtay annagoo dhowr sababood ku sabaynay biyaha fadhiisanaya waxa marka la qabanayo waa ina dadka deegaanka ee aqoonta ule laga talageliyo ayaa ahmiyaddu tahay ee dhulku suu yahay kala garanaya in laga talageliyo weeyaan waa cabdisalaan maxamed bade bulsha t v banka wajaale